السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة السلام عليكم الدنيا كجوجتان وسعيدكي ولكن كين كبر قاعد يوتيوب كداونيسان waa كين كبر قاعد فلان channelkii ku cusubtaa ku soo gacan furan channelka subscribe saar kan balaalkana furo si aad soo xal baan soo gelino una noqdo daawashadeena horeeya haddii aad hore noola joogtana video aan like saar aad iyo aad u maasantahay like-ta dhiirigelin inoo tahay waa iska bilaash noo saar like-ta anakan dhiirigelin noo tahay adigan agtaada wax kama aha waa iska bilaash aad iyo aad u maasantahay intaas kadib maanta waxaan rabaa inaan soo gudbiyo insha Allah 10 cusub oo tutorial ah kuna saabsan iPhone reer Samsung madaas ka tahay iska bax aska bixin laakiin laga yaabo in markuu anfaco iska daawo reer iPhone daataan adigana daawo maanta waxaan rabaa insha Allah inaad idin faa'iido sida aad ku samaysan lahayd ama ku abuuran lahayd Apple ID cusub oo adiga ku gaar ah waliba adigoo jooga dalka Soomaaliya runtii dadka badana iPhone-ada horta qaar ay ka gataan qaarna dibadaha loogu soo dhiibaa waliba ku Apple ID-gooda u samaysan yahay runtii waxa kula talin lahaa Apple ID qof leeyahay ama qof ku soo sameeyay waliga inaad isticmaalin ama aad ku kalsoonaan sababtoo ah Apple ID-ga qofka ku haayo wuxuu haayaa xogtaada ama furahaada oo dhan waxa loo rabaa ka subsan karaa haddii Facebook aan leed Snap haddii aan leed TikTok haddii aan Instagram haddii WhatsApp haddii aan leed xitaa sawirradii muuqaalada mobilkaada soo galo wax walba ku saabsan qofkaas uu kula wadaagi karaa haddii aad isticmaalaysid Apple ID qofku soo sameeyay marka waxa kula talin lahaa haddii aad iPhone leedahay ama hadda ku taamaysid in iPhone gadatid waxaan kula talin lahaa marnaba inaan isticmaalin Apple ID qof kale uu ku sameeyay ama Apple ID qof kale uu password soo giyay waxaan ku dhila waxaada adile daangeyso waxaan ku bari doonaa insha Allah qaabka aad u samaysan lahayd Apple ID cusub iyo qaabka aad macnaha u firfaagreen lahayd Apple ID markii la sameeyo isla markii App Store-ka ma ku isticmaali kartid waxa kale soo degsan kartid wuxuu ku weydiinayaa address postal code iyo waxyaabo badan oo ku diyaay city magaalo wuxuu ku weydiinaa waxaasna Soomaaliga ma yaqaan marka taatikoyn iyo qaab cusub oo loo isticmaalo aad address ku heli kartid feega waxaasna ku heli kartid Apple ID-ga inuu ku samaysan karo ayaan ku waayaa insha Allah daawasho wanaagsan laga saar muuqaalka wax fikirka comment inoo reeb siina sheegare insha Allah saxaabta la wadaag haddana waxa idin wareejidana qaybta iyo shaashada kombiyuutarka daawasho wanaagsan okay aad soo jeedaan waxa hortaaganahay shaashada kombiyuutarka mobile haddii aad ku samayn kartaa laakiin maanta kombiyuutar ku samaynayna waxa qorinaa sign up Apple ID iPhone marka aan soo qorkadib waxa samaynaysaa waa searching gareynaysaa okay idan waxa ku soo baxaysaa jihadstaana waxaan taabanaysaa linkii ugu horeeya ay ku qoran tahay applied Apple kadib wajhadstaana ku soo baxaysaa ku qoran tahay create your Apple ID marka waxa buuxinayna formkan isla buuxin insha Allah okay mesh fastnamka magaciisa qoraadna magacaada ku qoran kartaa fastnamkan waxa ku qoraysaa magaca bahada meeshan waxa ku qoraysaa wadanka aad ku nooshahay aad gelinaysaa dan meeshan idin waxa ku buuxinaysaa taariikhdii sanadkii iyo waqtigii aad dhalatay aad gelinaysaa meeshan waxa gelinaysaa Gmail-ka aad ku sameynayso Apple ID-ga hadani Gmail hadda sameeyo practical ku sameynaa midkaan gelinaa hadda marka Gmail-ka gelis kadib waxaad imaanaysaa meesha password-ka meeshan password-ka ugu yaraan waa inuu 8 xaraf yahay oo xaraf ka mid xaraf u horeeyo inaa capital ka dhigtaa waa inuu hal lambar ku jira ama hal calaamad password adiga loo baahan meeshan jilaac looma baahno hooy waa photo iyo hebel waa photo iyo waxaas looma baahno markaad password adiga geliyaaniga 8 xaraf iyo hal lambar iyo wax ku jiraan kadib meesha aad waxa gelinaysaa magaalada aad ku nooshahay wadanka dhexe aniga Soomaaliya raadina haaway kadib waxa gelinaysaa lambarkaada meeshan waxa gelinaysaa calaamadaas iyo lambaradaas meesha ku qoran aad geli doontaa haddii aad ka sawiraysid meesha new code ku qoran taabanaysaa marka calaamadan waxaana geliy xarfaan kadib go submit meel ku qoran taabanaysaa waxaad sugaysaa oo wareegsanaa dan meeshan ku keenay wuxuu ku leeyahay verify your email address to create your new Apple ID marka code-ka lagu soo diray email-ka ayaad gelinaysaa meeshan hadaniga waa geliyay dan haddana wuxuu ku xijinaa lambarka wuxuu ku leeyahay lambarka lagu soo diray haddana lambarka code-ka lagu soo diray ayaad gelin doontaa meesha hatta ujeedin lambarkaas lagu soo diray aniga hadda kombiyuutarku ay iga dimay shaashada mobilka wareegsan doonaa kana shaashada mobilka kan waanu full lambarkii ku firfaagreyna
كل كود كويس صدرين واجلي وكاس عبار وركسنا باري رسوينا موبايل حقيقتك وكعلوسي هاي سأجدان هذا واكن وسمي ابل اي دي سأجدان وكاسا هذا صد ابل اي دي وسمي او مجيء وكاسا محمد وكاسا جيميل كن وكاسا قلنا هذا يرى ابل اي دي وكاسا وجودين وانا متك براتي كذا انا هذا يقول عشركه اوكي waxaan aadi doonaa marka mobilka qayb setting aadi doonaa waxaan kicin doonaa Apple ID-ga had soo sameynay marka waa kan hadda Apple ID-ga waxaan gelinaa gmail-kii birqaaye gmail.com gmail-ka aad meesha ku samaysatay ayaa Apple ID-gaaga noqonaya markaad waa kana kadib wuxuu ku leeyahay keli passwordka aad soo samaysatay aad gelinaysaa passwordka markaad sameynaysid waa inuu mar walba xarafka ugu horeeyo oo capital lahaada markaad passwordka muuqanayo screen-ka markaad duubayo passwordka gelina next ayaa leeyahay cabaar wareegsana xoogaa markuu cabaar wareegsaday kadib waa kan haddana wuxuu weydiinaa koodkaas wuxuu kusoo dhici doonaa mobile numberka aad haddaa meeshaad gelisay haddana mobile numberka koodka waa ii soo dhacay waana gelinaa hadda akaad ii soo dhacay akana waa geliyey okay next leeda marka xoogaa yar wareegsanaa hadda sign in to iCloud ku dhahay hadda Apple ID-gaadii waad ku kicisay mobilkaada laakiin dhibaatada jirta waxay tahay ma verify gareysno waxna kuma soo dirsan kartid markaas aad u verify gareysid wuxuu ku weydiinaa maxaa la dhahayay email wuxuu ku weydiinaa email adina address ku weydiinaa iyo postal code wax Soomaali postal code maal marka triga ma qiyaanira inta loo update garin maxaa la dhahayay loo sameeyo loo helo address faga markaad meesha wuxuu ku leeyahay inter iPhone passcode waana passwordka kugu xiran taleefankaada wax kale maahan hadda aniga waa geliyey numberkii ugu xiran waxay wareegsanaa okay saad u joodid wuu kacay waa kaasa Apple ID-gii wuu kacsamay oo magacii gmail-kii waa u jeedin soo marka waxaa intusinaa marka qaabkaad Apple ID-gaada u verify gareyn lahayd si aad uga soo degsatid App Store-kii programmyadii waxyaabaha aad u baahantahay soo degsatid haddii aadan verify gareyn wax program iyo barnaamij ah ma ka soo degsan kartaa App Store-ka marka App Store-ka soo kicinaa waxay wareegsanaa meesha madaxa taabanaysaa oo calaamada madaxa ku saaran tahay kadib waxaad gelinaysaa Apple ID-gaada oo gmail-ka meesha soo samaysato waaye hadda geliya aniga birqaaye gmail.com sidoo kale meesha hoosna waxaad gelinaysaa markaad gmail khulka dhamaysid meeshaas passwordkaada samaysanaysaa waxaad gelinaysaa passwordkaadana waa inuu ahaadaa xarafka ugu horeeya capital 6 xarfood iyo number ama calaamad iyo waxaan ku jiraan marka dhanaa leeyahay aniga xoogaa cabaar wareegsanaa xoogaa yar culus raaliyaada okay meesha calaamada reviews markuu soo reviewgaas aad tagaysaa marka reviewgaas markuu kuu soo saaro waa ku fulinaysaa xoogaa yar wareegsanaa meel kale ku geenaa marka page kale ku furaya markana page soo muujin وكل هذا ماشي سكول ريبوبليك اوف ايفو هرتahay wuxuu ku diinaa city magaalo ku diinaa marka aqoona magaalooyinka meeshaan soo galayaan marka si aad address feega u heshid waa inaad soo raadisaa address feega marka aniga meeshaan ka baxaa waxaan galaa uji kala cusub ee geena si aan u soo helo maxaa la dhahay address feega marka meesha kor waxaad ku qoraysaa Sweden fake address dan meesha u koraysa ku dhufanaysaa linkii u koreeyo ka soo jeedin waxa ku qoran kulay Sweden kulima meesha aragtaa isticmaali kartaa marka waa kana address badan oo soo saara marka tani midka uu koreeyo midkaan hadda ku isticmaali doona insha Allah addresska city-ga
iyo postal code-ka marka meesha aad koobiso dhan adresskaas meeshaan baasta ku leeyahay okay haddana mar kale waxaa soo koobi gareynaa postal code-ki koobiyaa leeyahay meeshaan haddana baasta ku leeyahay haddana mar kale magaalada soo koobi gareynaa townka baastiyaad ku leeyahay mar kale haddana lambarka meesha ku qoran ayaad soo koobi garaysanaysaa okay meesha haddana baasta ku leedahay markaas samaysid waxaad taabanaysaa meeshay ku qoran tahay next saa ujeedaan duwarkaasa wixii dhan waa ay saxan yihiin okay markaa next raadid cabaar wareegsana waxaan kuu soo saaraa qaabkaas irabal id completed oo kuu soo saaraa xoogaa yaroo wareegsanaa marka sidaas kuu verify garaysan yahay maxaa la dhahay apple id-gaada cusub umana baahanaysid inuu qof kuu sameeyo umana baahanaysid adres qof leeyahay wax walba adiga waddankaa joogaa duwane adaana daangeysanaysid waxaa rajeeraa insha allah inaad waxun ka faateen fadlan muuqaalkan laagtiyaa laga iloobin okay waxaa filaya insha allah inaa cashirkaa fahantiin dhammaantiina aad ka faa'iideen waxaan iga codsanaya insha allah si walaaltina muuqaalka like saartaan sii share garaysaa wixii fikirkiina comment inoo reebtaan channelkana subscribe gareysaan waxaan inoo balan insha allah muuqaaladiina muuqaalka xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu